بسم الله الرحمن الرحيم waxaan u mahadnaqayaa Allah subhanahu wa ta'ala oo maanta na gaarsiiyay guushan taariikhiga ah iyo mira dhalka halgankii dheeraa ee dadka iyo dawladda Soomaaliyeed ay u galeen xaqiijinta kiiskii sharciga ee lagaga hortagay damaca hoggaanka Kenya ay ku doonayeen inay ku sheegtaan qayb ka mid ah badda Soomaaliyeed wuxuu ahaa halgan cadaaladeed oo ku astaysan aragti fog aqoon durugsan dhiiranaan wadaniyad ilaalinta ammaanada ummadda iyo difaaca dalka iyo dadka waxaa guuleystay xaqa waxaa guuleystay sareynta sharciga guushan waxaa leh shacabka Soomaaliyeed oo mar walbaba garab iyo gaashaan u ahaa madaxdooda iyo dawladda ay doorteen mar walba oo ay shacabku ku midoobaan wadaniyadda una midoobaan difaaca dhulkooda waa kan maanta oo kala ah oo aan ku joogno guul noo soo wada hoyatay waxaan u mahadcelinayaa maxkamadda cadaaladda adduunka oo u hiilisay sareynta sharciga xukunkani waa astaan aad u qurux badan oo markhaati ka ah hufnaanta iyo daahfurnaanta maxkamadda ICJ waxaa bogaadin mudan baarlamaankii sideedaad ee qaatay go'aankii aadka u qaraaraa ee taariikhiga ahaa kaasoo saldhig u ahaa guusha aynu maanta haysanno kadib markii ay laaleen heshiiskiis afgaradka ahaa ee Kenya ay mar walba ku andacoonaysay iyagoo meel mariyay qaraar ay ugu magac dareen dhaxal dhowr waxaa xusid mudan doorkii sharafka lahaa ee uu qaatay madaxweynihii hore ee dalka walaalkay Xasan Sheekh Maxamuud oo bilaabay geedi socodkii cadaaladeed ee lagu difaacay badda Soomaaliyeed ee ay sheegatay Kenya sidoo kale waxaan ammaanayaa ama aan ammaan u hayaa iyo bogaadin iyo sharafba mudan qareenadii iyo khubaradii Soomaaliyeed ee u istaagay difaaca baddeena oo ay ugu horeeyaan abukaat Muna Sharmaan iyo Allah u naxariistee injineer Maxamed Umar Saalixi oo aad iyo aad uga haminayay ama hamigiisu ahaa inuu goobjoog ka ahaado ama u ahaado miraha dadaalkii uu galiyay kiiskan waxaan idin xaqiijinayaa in shakhsiyaadkan aan xusnay ay baal dahaba ka galeen taariikhda dalkeena ayna tusaale nool u yihiin jiilasha soo socda ayagoo ku sifoobay difaaca danaha qarankooda dadka iyo dawladda Soomaaliyeed marnaba ma ilaawi doonaan xilkasnimadooda iyo hufnaanta ay muujiyeen qariiqanadii iyo khubaradii dhanka sharciga ee shirkadda Foley Hoag gaar ahaan qareenadii kala ahaa Paul Richler Professor Philippi Sanders Professor Alain Pellet Alina Marino iyo ugu dambeyn Edward Craven oo dawladda federaalka Soomaaliya u wakiilatay matalaadda iyo jeedinta sharciyeed ee dacwadeena waxaa iyana mahadnaq mudan guddiga dawladda federaalka Soomaaliya ee har iyo habeenba u taagnaa la socodka maamulka iyo isku xirka dacwadeena ee uu hogaaminayay ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda mudane Mahdi Maxamed Guuleed Khadar ayna ka mid ahaayeen danjirihii hore ee dalkeena u fadhiyay Brussels danjire Cali Saciid Fiqi xeraaliyihii hore ee dalka abukaate Axmed Cali Daahir iyo xeraaliyaha haatan garyaqaan Suleymaan Maxamed Maxamuud qareen Xamza Ibrahim Cabdullaahi danjirihii hore ee qaramada midoobe mudane Yuusuf Garaad Cumar iyo danjiraha haatan mudane Abukar Daahir Cusmaan Abukar Baale difaaca hantideena qaran ma ahayn wax fudud markii la eego in aan nahay dad iyo dawlad la daala dhacaya duruufo aad iyo aad u adag kana soo kabanaya sanado badan oo burbur iyo dawlad la'aan ah haddana ku shaqeeya taageerada wadaniyad
iyo isku duubnida ay muujiyeen shacabka Soomaaliyeed taasoo na siisay dhiirigelin iyo awood dheeraad ah oo aan ku ilaalinayno ama aan ku wadayno halgankeena shacabka Soomaaliyeed ee sharafta leh mudanayaal iyo marwooyin tan iyo markii la doortay waxaa nala soo gudboonaaday culaysyo siyaasadeed amni dhaqaale iyo diblomaasiyadeed oo hoggaanka Kenya ay ku doonayeen inay ka leexiyaan dadka iyo dowladda Soomaaliyeed dhabaha ay doorteen oo ahaa in kiiskan aan looga hadlin meel ka baxsan maxkamadda cadaaladda ee adduunka 3 bilood kadib markii aan xafiiska la wareegay hoggaanka Kenya waxa ay go'aansadeen oo si bareer ah u bilaabeen faragelinta siyaasadda gudaha dalkeena iyagoo gudaha dalkooda ka soo abaabulay ururo siyaasadeed oo ay uga dan lahaayeen inay culays jahwareer iyo xasilooni darro siyaasadeed kaga abuuraan gudaha Soomaaliya ujeedada ka dambaysa ay ahayd inay ugu gool xeerto inaan dib ula soo noqonno dacwadda badda cadaadis awgis kadib markii ay Kenya ku guul dareysatay cadaadiskaas waxa ay bilowday inay xadgudub toos ah ku samayso qarnimada hoggaanka dowladda Kenya waxay galiyeen maal iyo waqti badan in siyaasad ahaan nala go'doomiyo oo dowladaha dariska ah iyo guud ahaan qaaradda Afrika iyo beesha caalamkaba ay naga gudbiyaan sawirro been abuur ah oo aad iyo aad u fool xun sawirkaas oo dhaawac iyo bahdilba ku ahaa sumcadda dowladdeena soo kabanaysa fariimahaas khaldan oo lagu baahiyay wargeysyada caalamka iyo kuwa gudaha ee Kenya oo lagu beegsanayay shakhsiyan madaxda dowladda si sumcaddooda loo dhaawaco hoggaanka dowladda Kenya waxay abaabul ciidan oo lid ku ah madax banaanida iyo danaha shacabka Soomaaliyeed ay ku fulisay duqeymo dhulka iyo cirka ah oo aan loo meeldayin dhibaatadaas oo galaaftay naf iyo maal muwaadiniin Soomaaliyeed oo birmageeda ah waxaa sidoo kale xusid mudan ama la xusi karaa burburka loo geystay magaalooyin iyo xarumaha shirkadaha isgaarsiinta Soomaaliyeed ee ku teedsan xuduudaha labada dal Kenya waxay qaaday tallaabooyin ugub ku ah curfiga siyaasadeed iyo diblomaasiyadeed ee dalalka gobolka ayadoo isku dayday in la curyaamiyo dhaqaalaha dalkeena kadib markii ay olole xoogan ka bilowday xarunta qaramada midoobay kaasi ujeedkiisu ahaa in Soomaaliya lagu soo rogo qaraarka tirsigiisu yahay 1267 oo ay Kenya uga dan lahayd inay ku xayirto kulana wareegto hantida ganacsada Soomaaliyeed iyadoo lagu suntayo argagixisnimo xukuumadda Kenya waxay qaaday jid kasta oo ay ku carqaladeynayso habsami u socodka dacwadda badda isla markaasna ay ku doonayso in qol mugdi ah loogu xalaaleeyo baddeena iyadoo ka dhex bilowday ururada heer gobol heer qaaradeed iyo heer caalami ah hagardaamooyin lagaga been sheegayo dowladnimada Soomaaliyeed iyo halgankii xaqa ahaa ee aynu ugu jirnay difaaca baddeena annagoo u marayna dhabaha cadaaladda iyo xaqsoorka ee ay dunidoo dhan ku midaysan tahay kadib markii aan ka dhagaadegnay cadaadiskaas caalamiga ah wuxuu hoggaanka Kenya bilaabay inuu toos u fargeliyo qaar ka mid ah dowlad goboleedyada dalka iyagoo afduubtay hanaanka doorashada Jubbaland arrinkaas oo ay ka biyadiideen ama ay ka gilgisheen guud ahaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan waxgaradka aqoon-yahanka iyo siyaasiyiinta deegaankaas waxaanu garowsanay in tallaabooyinkaas guraacan ee ka dhanka ah madax banaanida Soomaaliya ay u qaateen madaxda Kenya si madaxda Soomaaliyeed ay u fuliyaan danahooda iyo damacooda ku wajahan boobka badda Soomaaliyeed
iyaga oo marar badan si aan gabasho lahayn noogu xaqiijiyey inay si buuxda noogala shaqayn doonaan ama noogala shaqaynayaan hagaajinta xiriirka wada shaqaynta ee ka dhaxeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka Jubbaland haddii aan ka tanaasulno dacwada badda. shacabka Soomaaliyeed ee sharafta leh, mudanayaal iyo marwooyin, waxaan u dhaaranay inaan ilaalino ammaanada aan u qaadnay shacabka Soomaaliyeed. damiirkeenana marnaba nama siinayo inaan dhaxalka jiilasha soo socda ku bedelano dana shakhsi ah ama dana siyaasadeed ama mid dhaqaale iyo mid kursi oo madaxleedkiisa uu kooban yahay. waxaanu door bidnay inaan marnaba aynan qaadan gunnimo dharag leh, aanu ka dooranno gobonimo gaajo leh. tallaabo kasta oo aan qaadnay iyo go'aan kasta oo aan gaarnay waxaa halbeeg u ahaa ilaalinta qabka Soomaaliyeed, qaranimada Soomaaliyeed, midnimada Soomaaliyeed iyo sharafka dadka iyo dalka Soomaaliyeed. shacabka Soomaaliyeed ee sharafta leh, waxaa maragma doonta ah in cadaadiska iyo fargelinta qaawan ee hoggaanka Kenya aysan ku koobnayn dowlad goboleedyada dalka oo kaliya, balse waxa ay marar badan si bareera isugu dayeen inay khilaafaad ka dhex abuuraan hoggaanka dalka. dowladda federaalka Soomaaliya iyadoo ixtiraamaysa shuruucda iyo heshiisyada caalamiga ah waxay caddeynaysaa inay u hoggaansamayso go'aanka maxkamadda, annagoo ka rajaynayna dowladda dariska aan nahay ee Kenya inay ilaaliso sarreynta sharciga caalamiga ah, ayna iska ilowdo damaceeda ku salaysan marin habaabinta iyo boor isku qarinta, taasoo beddelkeedana ay go'aanka maxkamaddu u aragto fursad lagu xoojin karo xiriirka labada dal iyo iskaashiga labada shacab ee dariska ah. Soomaaliya inay Kenya daris la noqoto ma dooran, ee Allah awoodda leh ayaa qadaray. waan isku qasbannahay inaan nabad iyo daris wanaag ku wada noolaanno. Soomaaliya taas ayay ku taamaysay, weligeedna ka go'nayd, haddana soo dhaweynaysaa. shacabka Kenya waa shacab wanaagsan oo nabad jecel. waxaan rajaynaynaa hoggaankooda inay mudnaanta siiyaan sidii gobolku u noqon lahaa meel nabdoon oo barwaaqo ah, shucuubtiisuna ay si wada jira u baadigoobaan mustaqbal wanaagsan iyo barwaaqo sooran loo dhan yahay. maadaama maxkamadda cadaaladda adduunka ay go'aan meel mar ah ka soo saartay qadiyaddii xudunta u ahayd khilaafka labada dal, waxay dowladda federaalka Soomaaliya ay xoojinaysaa ama adkeynaysaa nabad ku wada noolaanshaha iyo wax wada qabsiga labada dal iyo labada dad, iyadoo meel looga soo wada jeesan karo ama looga soo wada jeesanayo argagixisada duulaanka ku ah xasiloonida iyo amniga gobolka. shacabka Soomaaliyeed ee sharafta leh, mudanayaal iyo marwooyin, waxaan uga mahad celinayaa dhammaan dadka Soomaaliyeed sidii geesinimada iyo hagar la'aanta lahayd ay u garab istaageen dowladdooda muddadii ay socotay dacwadu, iyagoo aan u kala harin difaaca qadiyaddan. guushani ma aha mid u soo hoyatay cid gaar ah, mana kala laha muxaafid iyo mucaarad, mana aha libin ay leeyihiin shakhsiyaad kooban, balse waa guul ka dhaxaysa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. waana guul dhaxal reeb u noqon doonta jiilka soo socda. waxaan rabaa inaan fursaddan qaaliga aan uga faa'iidaysto inaan ku dhiirigeliyo siyaasiyiinta walaalaheenna ah inay muujiyaan midnimo, isku duubni iyo in si wada jir ah looga shaqeeyo ilaalinta danaha guud ee qarankeena leeyahay, annaga oo meel iska dhigayna danaha shakhsiga ah iyo aragtiyada kala duwan ee aan ka leenahay siyaasadda. Soomaaliya ha guulaysato, Soomaaliya ha waarto, wabilaahi tawfiiq.